Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa Ibrahim Cabdullaahi Isxaaq iyo mar kale Muqdisho Channel Tube. Waxaan kaga hadli doonaa guusha waxa keena iyo waxyaabaha ay ku fikiraan dadka guuleysta. Mowduuceena waxa uu noqon doonaa waxa ka baro waxyaabaha ay ku fikiraan dadka guuleysta. Ujeedka noloshaada ha ku soo koobin inaad dhammayso jaamacadda si aad shaqo u hesho kadibna aad guursato. Rabbi waxa uu ku siiyey awood intaas ka ballaaran oo aad ku qaban karto wax intaas ka badan. Mar walba dadka guuleysta waxay mar walba ay sameyn jireen saddex waxyaabood sida waxbarashada, shaqada iyo guurka. Wax ka weyn intaas waad qaban kartaa oo waad yeelan kartaa intaas hami ka ballaaran iyo yeelo ahdaaf ka duwan intaas adoo tiigsanayo noloshaada iyo fakarkaaga si aad u gaarto guushaada. Ka fikir inaad dadka ka duwanaato, u fikir si ka duwan dadka caadiga ah. Ka fikir inaad la imaado wax qabad aan hore loo qaban iyo qorshe aan hore loo sameynin. Dadka inta badan waxay ka shaqeeyaan dantooda iyo danta qoyskooda, laakiin u shaqee si danta guud si aad u noqoto qof fikirkiisa gaara meel dheer ama la yimaada hal-abuur cusub oo dadka anfaca. Dhalinyarta intooda badan waxay ku hamiyaan mar walba inay dhammeeyaan jaamacadda kadibna si ay u helaan shaqo, yeelo ahdaaf ka duwan oo noqo qof meel yeeshta sida qof ganacsi gaar ah oo asiga nafs ahaantiisa uu leeyahay. Dhalinyarta intooda badan waxay raadiyaan marka ay dhammeeyaan jaamacadda shaqo sida shaqo shirkadeed, shaqo dowladeed iyo shaqo NGO. Adigoo gaari kara inaad xor u noqoto noloshaada sida shaqadaada, marna ha ku doorsan inaad hoos jirto gacanta dad kale. Qof walba meel ayuu ku fiican yahay, meel yarna wuu ku xun yahay, laakiin ma jiro qof dhammaystiran noloshiisa. Waa hubaal inaad gaari doonto noloshaada iyo hami haddii aad sameyso waxyaabaha ay ku fikiraan dadka guuleysta mar walba.